maanta uma ahan maalmihiisa murugada, waa uu dhoola cadeynaya, wejigiisana waxaa ka muuqata farxad xad dhaaf ah. Shakhsigan ka hadlayo waa Axmed Cabdikariin Maxamed, laakiinse dadka ay u yaqaaneen waqtiyo ka hor Axmed Biif. Maanta jawigiisa waa uu isbedelay Axmed, waxaa muddo kadib uu la kulmo hooyadiisa. Horaan waxaynu la soconnaa in muuqaalo baraha bulshada qabsaday ay ahaayeen Axmed oo hooyadiisa fariimo kala duwan soo diraysa, iyo sidoo kale isagoo tilmaamayay xilligaasi in hooyadiisa shakhsi hadda qaba uu dhibaateynayo. Laakiinse Axmed maanta Baydhabo ayuu tagay, waxa uu la kulmo hooyadiisa. Qoraal kooban oo uu ku soo qoray bartiisa Facebook ayaa u dhignaa sidan: Assalaamu calaykum walaalayaal, alxamdulillaah, Rabbi baa mahad leh ii suurtageliyay inaan hooyaday ugu tago Baydhabo. Waxa ila sawiran waa walaalahay hooyo ii dhashay, dhammaantood waxay isku raaceen inaan hooyo kaxaysto, nolosheeda inta ka dhiman ay la joogto. Markaska ku yaala ceelasha biyaha, insha Allah halkaas ayaan ku hayn doonaa, iyaguna mar waliba way la soo xiriirayaan. Waxaaba naga dhexeeya walaalnimo, hooyo dhanna Allah ay ciseeyo. Hooyo waa hooyo, abaalkeedana lama gudi karo. Rabbi baa xaqeeda u hiiliyay, abtiyaasheeda Allah ha sharfo insha Allah. Sidaas ayuu fariintiisa ku soo koobay Axmed Khayr. Magaca maanta dadka ay ugu yeeraan waa Axmed Khayr, laakiinse xilligii fanka uu ku jiray intuusan ka bixinna fanka, dadka magaca ay u yaqaaneen Axmed Biif ayuu ahaa. Maanta waddo kale ayuu wajahayaa, dunida waxa uu leeyahay waan ka sii jeestay, waxaan isha ku hayaa waddadii aakhiro. Hooyadeenna waa qofkay la guulaysan doono, waana ruuxa guushaasaan ku gaari doono. Sidaas ayuu fariintiisa ku soo koobay Axmed Khayr. Mar waliba ku xirnow Sharmaarka Media.